adoo dhaawacan, adigoo qalbi jabsan, adigoo murugaysan, adoo ciilaysan saadan ugu dhex noolaan noloshaan. Qodobada tan ilaali. Qofna ha siin kaa dalbaday. Dalabkaasi wuxuu doonaba ha ku yimaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Kusoo dhowaada walaalayaal muuqaalka kan. Haddii alla ogolaadaan raba inaan idinkugu tilmaamo arrimo dhammaanteen aanu qiimaheena ku dhisayno. Waa la yaab dadka qaar ayagoo qofka neceb oo karaahaysanaya ayay haddana la socdaan. Meeshuu aado, meeshuu ka yimaado, meeshuu fariistay, meeshuu degan yahay, wuxuu ku hadlay ayay kor ka fiirfiirinayaan oo kala socdaan. Haddana waa neceb yihiin. Si aadan marka noloshaan ugu dhex noolaan adoo dhaawacan, adigoo qalbi jabsan, adigoo murugaysan, adoo ciilaysan saadan ugu dhex noolaan noloshaan. Qodobada tan ilaali. Qofna ha siin kaa dalbaday. Dalabkaasi wuxuu doonaba ha ku yimaado. Lianna inteena badan siismada waan jecelnahay, laakiin kuwaan siisma ma galaan, laysma siiyo. Kuwaan hadday kaa fakadaan adoo dhaawacan oo murugaysan baa nolosha tan ku dhex noolaanaysa oo bilaa karaama. Saad waxaas iskaga ilaali si xun. Qodobada tan ilaali. Qofna ha ka ogolaan. Walow kuwa adduunka aad ugu jeceshahay ugu qadarin badan tahay, xaggoodaba codsiga ha kaaga yimaadee ha ogolaan, hana u fasixin biidnillaah. Ha noqon qofka qalbigiisa iloobay kadibna caqligiisa sababtiisa ku noolaaday, markaasna uu noqdo qof dadka ku adag oo naxariis aan lahayn, kana maran wax shucuur iyo dareen wanaagsan. Isku day qalbigaadu inuu saaxiib la noqdo caqligaada. Marka waxaa kuu kulmaya oo isu keenaysaa xikmaddii iyo awooddii, naxariistii, wanaaggii iyo danqashadii, aragtidii iyo go'aan qaadashadii. Iskuna day inaadan noqon qof xad jir ah oo adag marka uu wax xukumayo ama uu dad meel ku suntayo. Kuwaasna saysan u imaan waa in aad arrimaha kan ka taxadartaa biidnillaahi oo tiraahdaa maya, kuwan laysma siiyo, kuwan ma bixinayo. Xataa lacag malaayiin haddaad bixisid iyo qiimo kaleba kuma ogolaanayno. Kuwan ma ogoli, kuwan ma fasixi karo. Awalan arrinta ugu horeysa waxa weeye qofka kan in uu kugula dhaqmo ixtiraam darro uusan ku ixtiraamin inaad ka dareemaysid. Qof wada socotaan, qof wada sheekaysanaysaan, qof marka arrin ka dhaxayso, laakiin dhinaciisa marka waxa ka dareemaysaa in ixtiraamka iyo qadarintaad mudnayd aadan ka helayn. oo ku qadarin tiraya ama ixtiraamkaada hoos u dhigaya, hoos ku dayaya. Qofka arrinta ha u ogolaan, hana siin inuu ku sii taagsado. Ilaahay waa ku karaameeyey, darajo ayuuna ku siiyey. Qof kasta oo darajada iyo karaamada isku daya in uu yaro hoos u dhigo, meesha Ilaahay geeyena hoos uga dhigayo, noo dheh. Laysma siiya arrintan kadib. Qodobka kale xiga waxa weeye qofka kan in uu ku ciyaaro khusuusiyaadkaada, waxa adiga khaas ku ah inuu ku dheeldheelo qofkan. Tusaale kale taleefankaada, arrimaha khaaska ku ah, boorsadaada, dharkaada, qolkaada gaarka ku ah ee jiifka, arrimaha adiga khaas ku ah qofkan inuu ku ciyaaro, ku dheeldheelo, ha ka ogolaan, hana ka yeelin, hana siin fursadda noocaas. Wax kasta oo ay kuugu kaxdaba. Qodobka kale saddexaad waxa weeye ha ka ogolaan qofna ama ha siin qofna inuu waqtigaada kugu dul dayaco. Dayacaadu waqtiga la dayaco waa masiibo casrigan dadka kuwa ugu waaweyn haysta. Waqtigaadu waa noloshaada, sidaa darteed qofka kaa dayacaya ma mudna in aad fursad noocaas oo kaaga dayaca aad siisid. Waqtigaada ilaalso, waayo waqtigu qofkan kaa dayacay ma soo ceshan kartid. Adigii waxaad u kastay oo dayaca kaa yimid oo markaas aad isku sabarsiin lahaydna ma ahan. Qof kaloo bila'aadan oo adiga kula mid ah, laga yaabaa inuu kaa hooseeyaba, ayaa sabab wuxuu noqday waqtigaadii maanta caawa inuu dayacmay. Waa qoomamo aad u xun wey. Taasna ha ka yeelin. Haddii aad mawaadiicda tan xiisaynaysid oo aad jeceshahay muuqaalkana qodobada tan ay ku soo jiiteen, like muuqaalkan u samee, like saar, siina share garee, commentina ka soo dhiiba adoo dhahaya alxamdulillaah, ilaa wada masaa'ib badan oo socda iga badbaadiyey. Qodobka kale xiga waxa weeye kalsoonida indhala'aanta ee sii daysanay xuduud lahayn. Dad waa saaxiibi kartaan, dad kalsooni waad siin kartaa, laakiin kalsoonidu ha ahaato mid wacyi iyo garaad iyo ka fiirsasho iyo aqoon ku dhisan. Laakiin kalsoonidu markay noqoto mid indha aan lahayn oo meeshii la rabay ay ka rido qofka, kalsooni darra la yiraahdaa, karaamadaada baabiinaysa.
kalsoonida indhaha la'aan iska jir, kalsoonida aan xuduud lahayn, kalsoonidaadu waa inay xuduud leedahay. saadan beri uga qoomamayn qofkaas aad kalsoonida siisay haddii kalsoonidii uu dayacay, saadan uga qoomamayn. kalsoonidaadu xadkaysan dhaafin. qodobka kale ee xiga ee muhiimka waxa weeye dadka sirtooda. yacni qof baa sir kugu qarsaday, qof kalaa ku yidhi hebel heblaay muxuu ku sheegay, yacni sir uu ku yidhi ha faafin, cidna ha u sheegin. adi iyo asaga ayaa sirtaasi ka dhexaysay, cidna ha u sheegin buu ku yidhi. inaad sii faafisid oo qof kale u sheegtid doqonnimada iyo kalsooni xumada ayay ka mid tahay. sirta hadday laba qof dhaaftana laysku ogaa, laba qof ay ka dhex baxdo waa u dhammaatay, way faaftay. sirtu noocay doonto ha noqoto ee qofka kugu qarsaday. asraarta dadka kale ay kugu qarsadeen ama qofka kale kugu qarsadayna qof kale ha u sheegin, walow ha kaa dalbadee ha siin. ma aqaan dheh, waa khusuusiyaad dheh, waa asraar dheh, lama ogola in la faafiyo dheh. iimaan daraday ka mid tahay haddaan sheego ama aan bixiyo. qodobka kale ee xiga waxa weeye asraarta gaarka adiga ku ah ee shakhsiyadaada gaarka u ah, waxay doontaa ha noqoto. xitaa dembi aad gashayba wuxuu doonaba ha noqday. qof bilaa dembi ma jiro soo maha, qof aan yani khalad ka dhici ma jiro, qof walba khalad baa ka yimid. waxyaalo oo maaragtay hadduu qofka hadda soo xasuusto adiga adanba soo xasuusatay ashyaa markaad yarayd iyo waqtiyada gaar aad samaysay inaad ku qosashood la iyaabto tiraa waxaa samaysay. asraarta khaaska kuwa qofna ha siin, qofna ha uga sheekayn, ilaali. ilaahay karamkiisa waxaa ka mid ah haddii aan khalad galno inuuna asturay. marka asturkaas ha iska qaadin adigu, ha iska faydin, ha is ceebayn, ha is fadeexayn. dadka ummadoo dhan yani waa la cafiyey sida xadiiska qaar ku timi. ummadoo dhan rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waa la cafiyey ilaa qof khalad intuu sameeyey sir uu ahaa, khaas uu ahaa, kadibna banaanka keenay uu yidhi xalay saasay saasaan samey, dadka uga sheekay. ilaahay baa daday, ilaahay baa asturay, kadib asagii asturka iska qaaday, isfadeexaynay. kaas sinan laguma cafinayo, qaab lagu cafiyey maba jirtaba. kaasoo kale dhaha noqon. qodobka kale waxa weeye qodobkan waa qodob ku dhisan kalsoonida naftaada iyo dadnimadaada iyo shakhsiyadaada siday u dhisan tahay, thaqaafadaaduna u horumarsan tahay. waxa weeye qaraarka ama go-aanadaada adiga aad qaadanaysid. go-aanadaada waa shay adiga khaas ku ah oo keliya qofna kulama wadaago. yacni qof waa la tashan kartaa, arrintaasi maxaad ka dhihi lahayd, see u sameeya, see oo ula macaamila. sida anagaba hadda nala soo wadiyo talooyinka, qof tale waa weydiin kartaa, laakiin arrinta kama dambaysta waa go-aankaada. go-aan qof kale yuusu kuu gaarin weeye, wuxuu doonaba ha noqdo qofkaas. lianna haddii qof go-aan kuu gaaro noloshaada ku saabsan, go-aankaasoo noloshaada yacni khuseeya, haddii biri go-aankaas aad ku khasaartid oo aad ka qoomamaysid, dee yacni aad bay qoomamadaasi u xun tahay. laakiin haddii adiga go-aanka uu kaa imaan lahaa khasaarada, yani go-aanka aad qaadatay oo adiga go-aanka kaa yimi khasaara saa kugu timid, loo qaatin waay. laakiin meel kaa baxsan awooddaada iyo go-aano meel kale haddii ka yimaadaan, khasaaradu way ka badan tahay marka adiga go-aankan aad ku khasaartay uu kaa imaan lahaa. marka go-aamadaadana adiga ayay ku khuseeyaan oo leh. qodobka kale xiga waxa weeye qalbigaada iyo mashaacirtaada. qalbigaada maxaan ka wadaa? qalbigaadu waa faynuustaada, waa iftiinkaada, waa farxadda, waa yacni hormoonaadka farxaddu meeshay ka imaanayaan, dopamine iyo farxad waxaa kugu dhalinaya. qalbigaada markaad qolo kale amaahaysid oo aad siisid, dhaawacyada soo gaaraya ma ahan kuwa adiga keliya xataa kugu ekaanaya, waa kuwa xataa mustaqbalkaada fog baabi'in kara. qalbigaada cidna ha u ogolaan inay qol ka samaystaan. qalbigaada ilaalso. halkan waxaa soo gelaya dumarka intooda badan. qalbiga iyo caqliga waxay hormariyaan qalbiga markay arrimaha caatifada timaado, yacni shucuurtahan. qalbigu wax badan ma qiyaasi karo ilaa arrimo caatifadeed mooyaan, laakiin caqligu wuu ku hor istaagaya, waxbuu kaa ilaalinaya. soomaalidu maxay u dhaxaan caaqil hebel, yani odaygii cidda macno qabiilka caaqilkoodii. maxaa loo jeedaa? caqilkooda waxa kii ugu garan og ahaa wax arrimaha dhacaya ee nabadda iyo waxa ka shaqaynaya. caqligu waa xaajis, yacni daftafta iyo xumaanta ayuu kaa celinaya. caqliga ka shaqaysay, qalbigay meel siinaysaa, khasaara uga imaanaya, faynuusteeda qalbigeeda waa burburay. qalbigaada ilaalso iyo shucuurtaada iyo mashaacirtaada. yacni waxaan u jeedaa ha ku xirin noloshaada shakhsina. qof inuu hayo, qof inuu kasoo fusho, qof haddaad weydid, sidan haddaad weydid, in noloshaadu baaba'ayso, qalbigaada ha ku xirin. qalbigaada ilaalso. arrimahaas haddaad ka fakertid, ilaalisid, waxaan hubaa inaad heli doontid wax walba oo noloshaada. khasaaradii kugu dhacdana oo ay waxba kula ahayn oo wax weyn kula ahayn, laakiin aad ka tilaabsan kartid. marka waxaan rabaa inaad ilaalisaan qodobadaas. waxaa kaloo ogaataan
nolosha dhammaan laba aayadood baa ku xiran oo yacni tilmaamay. ilaahay wuxuu yidhi faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa. waa aayadda koobaad. noloshaada miisaan ku saar. ilaahay wuxuu yidhi qofka raaca hanuunkayga, wadadan qofka anu u jeexay ilaa ilaahay markuu ku abuuray adduunka ku keenay iskama kaasidayn. xayaatadaada saad u wadan lahaydna ilaahay wuu kuu qariray, wuu kuu jideeyey, nidaam u raaciisu kuu sameeyey. haddaad nidaamkaas ilaahayga rabbaaniga aad raacdid maxaa ka faa'iidaysaa? rabbi wuxuu yidhi falaa yadilu ma dhumayo fi dunyaa adduunyada dantiisa iyo noloshiisa iyo hanuunka iyo wanaagga kama dhumayo, walaa yashqaa nasiib xumana ku dhici mayso fil aakhirati aakhiro oo ahlu naar kama mid noqonayo. noloshu waa halkaas. aayadda kalena waxa weeye waman acrada can dikrii, dikrigayga iyo xuskayga qofka ka jeesada yacni waddada waa hanuunkii waye aayadda hore lagu sheegay. fa ina lahu maciishatan danka, nolol ishardinayso oo aan sal lahayn ayaa qofkaasi ku sugnaanaya. marka ka fikir labada aayadood bay noloshu hor iyo gadaal ku xiran tahay. إن شاء الله تعالى waxaan rajeynayaa inaad fahamtid waa cadaaladda nolosha iyo siday u dhigan tahay. labada aayado waxay tilmaameen insaanka ama qofka bini'aadankana dushiisa ma saarna ilaa inuu doorto mooyaane, kala doorto inuu maciishatan dankan doorto wa imaa hanuunka inuu doorto oo falaa yadilu walaa yashqa, dooritaanka asagaa iska leh. wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah. haddana doonitaankuna waa qadarka ilaahay mar walba oo qofka waxaa la rabaa inuu ilaahay weydiisto nasiib wanaagsan adduun iyo aakhiro. aad iyo aad baa umahadsantihiin. ilaahay ha idin xafido, muraadyadiinana ha sahlo, muraadyadiina nooc kasta yihiinba rabbi ha idin gaarsiiyo, dhibaatooyinka adduunya iyo dhibaatooyinka aakhirana dhinaca naga marsiiyo. aad baan ugu mahadsan tahay qof yahow muslimka ee mu'minka, qof yahow ila socda barnaamijka dhegeysiga dhegeysatay iyo sii gudbintaa sii gudbisay. ilaahay qacmahaya maskaxdaba ha kuu barakeeyo. horey u socda idaylkiin dibna ha fiirinina. ilaahay baa subxaanahu watacaala nolosha idin iftiimin doonee. jazaakum allahu khayra.